أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل كastoo aad naga daawanaysaan halkani waa telefishinka caalamiga ee Somali Channel stuudiyihiisa magaalada Helsinki. waxaanu idin soo gudbin doonaa barnaamij aan ugu magac daray xogside oo alabaan ku soo qaadan doono dhacdooyinka ama shirarka ay leeyihiin jaalida Soomaaliyeed ee dalka Finland. toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa musharax kamid ah musharaxiinta u taagan golaha deegaanka ee magaalada Helsinki, Deeq Cismaan Qurxan, oo kulan la yeeshay haweenka Soomaaliyeed ee dalka Finland. waxaana kulankaasi ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland Erkki Tuomio. haddaba wasiirka hadaladiisii iyo dhammaan warbixintii halkaasi ka dhacday ayaad ku daawan doontaan. waxaan idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Bashiir ah. daawasho wacan. xafladan casho sharafeedka ah musharax Deeq Cismaan Qurxan oo u sameeyay haweenka Soomaaliyeed ee dalka Finland gaar ahaan magaalada Helsinki ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda Erkki Tuomio oo halkaasi ka jeediyay khudbad uu taageero ugu raadinayay musharax Deeq Cismaan Qurxan. Erkki Tuomio muxuu ka yiri xafladaasi? waan idin salaamay dhammaantiin. aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato xafladan Deeq uu ku raadinayo doorashada golaha deegaanka. waxaa lagu jiraa xilligii doorashada dhammaan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Helsinki waxaa ka socda ololihii golaha deegaanka looga mid noqonayay. Deeq wuxuu ka mid yahay xisbigeena SDP Social Democrat Party. Deeq waa xubin firfircoon oo ka mid ah xisbigayaga, waana aqoon-yahan, waa nin ka bixi kara hawshan ama xilkan uu raadinayo. waxaan rajaynayaa inaad siin doontaan codkiina si uu uga mid noqdo golaha deegaanka, aad ku yeelataan qof idin matala. waxaana jeclaan lahaa inaad codkiina siisaan Deeq oo ah xubin ka mid ah xisbiga SDP. waxaana ka filaynaa in uu isbedelka aad ka doonaysaan uu keeno. doorashadu waxa ay bilaabanaysaa 17 bisha hadda aanu ku jirnay ee 10aad. qof kasta oo degan wadankan 2 sano deganaansho ku leh xaq ayuu u leeyahay inuu doorto qofka uu is leeyahay waa uu ku matali karaa. haddaba waxaan idinka rajaynayaa in aad ku taageertaan codkiina Deeq iyo xisbiga SDP waana anigu ka mid ahay. waxaanan mar walba ku dadaalnaa in aanu arrimaha bulshada wax ka qabanno sidaad horeba nooga barateen. waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. assalaamu calaykum dhammaan dadweynaha isugu yimid meeshaan ama asxaabta aan maanta isugu yeernay caawa inay meeshaan naga qayb qaataan xafladda ama kulanka maaragtay lagu soo abaabulayo ama aan ugu abaabulnay ololaha doorashooyinka deegaanka ee Deeq Cismaan Qurxan inuu nooga qayb galo. waxaanu leenahay ku soo dhawaada idinkoo mahadsan sida sharafta leed caawa nooga soo qayb gasheen. aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. haddana maadaama waqtigu aad noo hayo waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ulka ministerio Erkki Tuomio. waa kii markii nala joogay oo naga tegay, laakiin hadda waxaan ku soo dhaweynaynaa erikois avustayaheeda oo la yiraahdo Tarja Kontola. Tarja, tervetuloa tänne. Mä halusin tulla tänne ja ulkoministerin kanssa puhuttiin, että haluttiin ehdottomasti tulla tähän tilaisuuteen, koska tällaiset esimerkit on rohkaisevia, ne on tärkeitä niin, että me voidaan näyttää, että meiltä löytyy hyvin päteviä ehdokkaita, joilla on vähän erilaisia taustoja. Mä oon ylpeä, että sä olet Deeq meidän ehdokkaana. Tervetuloa päättäjien joukkoon Helsingissä. Olen ihan varma, että sä menestyt vaaleissa ja on monenlaisia kunnallispoliittisia tehtäviä ja monta muuta tehtävää, missä tarvitaan sinun osaamistasi. Ja todella täällä on ihania naisia, tänään miehiä myös, mutta pääasiassa naisia, joilla on myöskin niin paljon annettavaa, että tulkaa mukaan toimintaan. Ja tässä tuli tämä toive erityisesti tästä mahdollisuudesta tavata tämän tyyppisesti, tavata toinen toisiaan, ja se on meidän hoidettava.
mutta mehän hoidetaan se sitten yhdessä. Sinä tulet tekemään siitä aloitteita. Mä voin kertoa yksityiskohdat, mitä kaikkia pitää tehdä, mutta että se toteutuu vain silleen, että tuutte mukaan. Mutta kiitoksia, oli ihana ilta ja te olette todella ihania ihmisiä. Kiitos. Barnaamijkeeni ayaan sii wadanaynaa. Dad badan ayaa caawa raba codkooda inay baxsadaan oo fikradda iyo taageerada ay muujinayaan raba inay halkan ka hadlaan. Laakiin hadda waxaan siinaynaa Deeq bal inuu isagana maaragtay fikradiisa iyo sababta loo dooranayo inuu isagana bal wax yar noo cadeeyo. Idinkoo mahadsan. Deeq ku soo dhawaa walaalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane iyo marwooyin waxaa farxad weyn ah inaan ugu soo dhaweeyo maanta caawa oo isugu imaanay macnaha ka qayb qaadashada doorashooyinka nagu soo food leh isbuuca soo socdo ah doorashooyin aad iyo aad muhiim u ah maadaama wadankan ku noolahay. doorashooyinkan runtii waxay ka mid yihiin markii loo fiiriyo wadamadan Yurub kuwa ugu muhiimsan kan oo baarlamaanka iyo ka madaxweynaha waxa ka sii muhiimsan baa la sometimes kan oo kunalis baaliga kan oo doorashooyinka oo kuntada ayaa muhiim ah. kuntada waa meesha kaliya oo laga gaaro go'aamada kooxda ay tuka dil jarahayo ama hadii mataqaana lagu darahayo waa meesha kaliya go'aanka laga gaaro waay. buunda hadii la dhisayo buundada oo Helsinki waa la meesha kunta kasta waxa waayaan go'aanka iska leh hadda isba iyo faanta gooni nageen laakiin hadda Helsinki anaga Helsinki marka waxaan u baahanahay waan ku noolahay wadankii meel waxa la ama ka maqno ama ka muuqaal lahay maadaama aan wadanka ku noolahay waxaan u baahanahay inaan qayb qaadano nolosha ayaa ku xiran inaan codkeena aan bixino oo guriga ka soo baxno taas ayaa mataqaan loo kala bixi karaa inaan ku lahaano municipality-ga ama kuntada magaalada Helsinki qof edustaye oo anaga matalo oo codkeena ku hadlo oo problemkeena u gudbiyo meeshii go'aamada laga gaarayay haddaad banaanka aad ka maqan tahay meesha go'aanka laga gaarayo waxa la qof aan hadlin waxa la hooyadiisa aba qadisan lahayd saas maaha mama Soomaaliya saas ay leeyso marka waxaan u baahanahay wadankan maadaama aan ku soo guuro in muddo ah hadda aan joognay inaan ka qayb qaadano howlaha ka socdo saameyn weyn bay ku laashay nolosheena wali wadankeeni waxa weeyaan aan ka soo tagnay hadda ma aan joogno wadankana hadda aan ka wadan dhiganay saas daraadeed waxa muhiim ah in aan ka qayb qaadano doorashooyinkan oo ah mid aad iyo aad muhiim u ah nolosheena saameyn weyn ku leh haday noqoto xagga waxbarashada haday noqoto xagga caafimaadka haday noqoto xagga jidadka iyo isgaarsiinta labadaba sababtoo waxaan dhan waxa weeyaan dadka la noolahay ayaa u jeedaa inay wad ordayaan marka inaan anagana aan helo qof namatalo oo baahideena iyo macnaha iyo dhibaatadeena mataqaana markasta la socdo oo u gudbinayo xarunta tusaale ahaan xisbigan SDP anaga hadda aan ka tirsanahay waa xisbi kaliya ah oo dadka bini'aadanka iyo bulshada arrimaha bulshada macnaha khaas u tahay waay xisbi kasta wuxuu leeyahay mataqaana nidaam iyo system buu ku noqon laakiin xisbigan anaga aan hadda u tartamayo waa xisbi kaliya ee arrimaha anaga dadka soo guuray wadankan macnaha dantooda haya waay xisbiyada kala qaar waxa waaya waxay wadaan mataqaana ganacsatada dadka lacagta leh dadka taajiriinta iyo arrimahooda wadaan sida xisbiyada oo hadda xisbi kokomiska oo kale laakiin xisbigan waa xisbi saan sheegay oo ah xisbi mataqaana dadka danyarta iyo dadka shaqaalaha dadka soo guuray wadankan soo guuray dantooda wada waay tusaale waxaan sheegay xisbigan wuxuu u tartamayaa hadda ninkii meeshan ka tagay wuxuu ka imaaday goboladaas hadda ilaa Turku meel badan ka imaaday wuxuu u tagay in oo mataqaana loo campaign gareeyo sidoo xisbigan uu ku guuleysan lahaa oo kuraas badan u helaa haddii kuraas badan la helo waxa waay anaga wax qabad fara badan oo zaid ay xisbigan noo zaidinaya xisbigan anaga balan waxaan la galay dadka baahideena oo dhan inuu wixii uu dabooli karo u daboolo baahideena way badan tahay hadda tusaale haweenka Soomaaliyeed waa dad muslimiin ma ay haystaan meela ay mataqaana ay ama ku jimicsadaan ama ku dabaashaan ma ay haystaan haddii laakiin aad lahaan lahaydeen qof macnaha oo mas'uul oo xaruntii meesha go'aamada laga gaarayay inii joogo waxaas oo dhan waa la xalin lahaa
saas daraadeed haddii waxaan u baahannahay inaan hadda anigu iniga codkiina haddaa isiisaan unbaa ani meeshaas macnaha aan tegi karaa haddii laakiin aan liyo codeynin oo waxba aan lisaynin meeshaas ma tegi karo marka waxaan inaga codsan lahaa in aad mataqaanaa aad codkiina aad noogu deeqdaan anigana aan berito aan mataqaanaa aan isku dayo inaan mataqaanaa aan difaaco xuquuqdiina wixii xuquuqleedina aan soo celiyo waxa aan la galay wada hadal aad u dheer xisbigan oon dhahay haddii mujtamacayga aan ku guuleysto doorashadaas maxaa aniga leen awood ma lihi inaan yidhahdo waxaan qaban karaa waxaan samayn karaa awooddaas ani ma lihi laakiin xisbiga ayaan u sheegay waxaan dhahay xisbiga baahida way badan tahay dadka mujtamacayga haysta mid waddankeennii tusaale waa uga faa'iideysan karaa for example waxaa noqon karaa dad isku xiro macnaha buundo isku xirto oo kale for example dalkii Soomaaliya iyo kan uu noqon karaa xisbiga hadda wasiirka wuxuu dhahay waxaan diyaar u ahay u dhahay inaan tago Muqdisho dhahay taasna dalkeena dib u dhiskiisa wax badan ay khaldan oo naga haysan marka ani waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynay aan hadalkii nagu badinin oo aan rabo walaalaha inaan siiyo codka iniga ay siisaan unbaa ani wax ku noqon karaa iniga wax iga dhigi karo saas daraadeed codkiina ayaan u baahanahay hadalkana waxaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad u mahadsantihiin iyo sida wanaagsaneed uga soo qayb gashateen mar labaadna waxaan leedahay aad u mahadsantihiin kollayba deeq waxba noogama tegin bay la tahay caawa wixii oo dhan isagaa noo sheegay waxaan kollayba u baahannahay meeshaan aan idinsugu kin yeedhnay ama aan idinku casuunay inaad nagala qayb qaadataan ama aad codkiina noogu deeqdaan in aad deeq siisaan sababta waxaa weeyaan waay deeq loo siinayaa ma dadku is weydiin karaan yacnaha innaga haddaynu Soomaali nahay waxaan rabnaa maxaa la dhahaya in aan fiirino dadka sharaxan yaa macquul u leh yaa soo bixi kara yaa codkaan ugu deeqinaa qof aan haysanin cod maanta ama se aan isleenahay qofkaan ma soo baxayo codka aad siisa dee wuuba la seexday dadka jaaniska haysto sida deeqoo kale waa in aan codkeena siinaa midda kale waxaan rabaa inaan idiin sheego SDP waad ogtihiin 20 sano ee wadanka soo joognay inta ugu badan iyaga wadanka maamulayay waa heerka maanta aan joogno waa dadkana soo gaarsiiyay maamulkooda hadday qolo xun aan lahaayeen ama cunsurnimo nagu sameyn lahaa heerka maanta ma soo gaarneen ilmaheenu wax ma barteen guryaha waaweyn mayna deganaadeen ilaa wadankeena waan ka soo qaxnay nolosha maanta aan hiigsanayno Hilton inaan caawa joogno ma ina noo suurta gasheen iyaga ma arteen soo gaarsiiyay maadaama 2 sano hadda ugu dambeysay ay ku guul dareysteen waxay diyaar u yihiin oo caawa isugu keen yeedheen in aan ma aragtay dadka ajaanibta ah siiba Soomaalida waa dadka saddexaad ee wadanka ku nool in ay ma aragtay SDP taageeraan oo ka soo qayb galaan sababta ah waxay iyagu doorbideen in ay wax badan noo qabteen taas naftirkeeda waa sharaf aan gooni ugu sii fiirin karno marka loo fiiriyo qaybaha kale deeq marka waxaan leenahay waa nin 20 sano ee wadanka aan joognay mase dhowr 20 sano wadankan ku noolaa 10 sano ee ugu dambeeyay waa nin active ah ee ururada iyo meel walba ku jiray way wada ogtihiin deeq waxa weeyaan waa nin wanaagsan waa nin wax loo dhiiban karo waa nin ma aragtay cadaalad iyo daacad u dhow marka qofka aad wax u dhiibanaysaa markasta waa qof aad isleedahay alle qofkan haduu halkaas taga bari Soomaali buu wax u qabanaya wax u qabanaya waa Soomaali kan xun anagu buu wax noo qabanaya kan fiican anagu wax noo qabanaya marka keena wanaagsan waa inaan horumar gaadhsiinaa waa inaan codkeena siinaa waa inaan taageernaa inagoo dhan isma soo wada sharaxi karno hal baa soo sharaxaya halkaas dadka ugu wanaagsan waa inaan codkeena siinaa yaa wanaagsan anigu deeq wiila wanaagsan iyo dadka wanaagsan buu ku jiraa walaalayaal waxa idinka codsanaynaa inaad horta koow codkiina bixisaan cidda doontaan basiyo marka labaadna waxa idinka codsanaynaa deeq inaad siisaan marka idinkana maanta xafladda aad nagala soo qayb qaadateen ee aad timaadeen aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan halkan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wajiyo ama faysas kala duwan oo fikradda aniga aan qabo inay ka duwan tahay dhici karta ama inay ugu taageersan yihiin marka ugu horeysa waxaan siinaynaa Qadar Buurana Cali oo rabta inay meeshan ka hadasho soo dhaweedo bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan waa wada salaamantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa hadda waxaa igu fiicnayd iyada oo deeq iska sharaxay
يا deeq oo space ka sharaxaya yaa igu fiicnad laakiin waxa uu leeyahay calooshaada bixiso yaa marka waa inaan sii dacdaaco waxa waaye deeq annaga markii isbuu joogay deeq 4 qof buu ku dhacay aniga aad arkaysaan kolba waxaan u tagaa naag 5 caruur haysato waa la sii joogaa markay soo wado igu soo noqoto tu kale inta gaay markay soo wado tu kale u sii tagay isbuu dhan baan ku wareegay laakiin haddana wax ka waayay maayo Helsinki iyo isbo wax yar bay isku jiraan wixii ay Helsinki u qabto anagu ii qabtay waxaan leeyahay in kasto dadkeena isku batay isba hadda 5 ba ka sharaxan keedsiisa mid baa indhahaygii ah mid baa wadnahaygii ah mid baa calooshaydi ah mid baa lugahaygii ah yaa mid baa maskaxday 5 basaas loo kala qaybsan yahay keedsiya marka yaa waa isma ka hadlaya deeq cidina isma weydiinin baa inta ma fadhiyano marada ma qabeene shiid baan qaadan lahay marka waxa wanaagsan Soomaalidu horta inay iyagu horta hore intay soo shiraan in labo lagu soo mitido 3 markay noqoto 4 markay noqoto qabiil ma waayno qulun qabiil baa inagu jira 5 markay noqoto nin walba qabiil buu ordaya oo horta taasaynu ma leeynaga faa'iideysano xitaa chance leeynaga heliya ajnabi kale ummadii kale waa leeynaga heliya muddo hadda laga joogo ma 5 sano mise 6 sano nin Bangladesh iska sharaxan ma isbo isna saasoo kale nagu gurmanay kala araguu helay waxbuu noo qabtay ma sha Allah nin islaam waxa wali uu nagu xidhan yahay marka walaalayaal maadaama anagu aan tabarhaynin oo nana erasiki ahayn waxaan leeyahay dabaashi layni qabto in la soo gali jimicsigii layni waxay waan in la iman yaa inku aan aqranina hana aqranina doorashadiina xaq baad u leedihiin deeq hala siiyo yaa waxa iman doonta inta qof ee fadhida maalin walba inuu qof uu mid wado waana loo yeedhi ama isbaha noqoto ama Helsinki ha noqoto yaa ilaan Helsinki way soo day karaay in la dhaaye aniguna hebel baan wataay woodkaaga si khatray wiilashaydii way degan yihiin marka waxaan leeyahay woodkiina doorashadiina si fiican ha loo rito hadda koor waxa dhacday madaxweynaheeni taar halanan markay saraxaysay mar labaadkii nin baa inoo dhaarinay wuxuu ku hayay Soomaalida hadaan jaran ku dhaqin iyo ajnabiga hadaan ku dhaqin miyay raaxaysanayaan lacag ma qaadanayaan jaran ku dhaqin walla amin galabon casir tukanay yaa la wada dareeray min dhaa kun waan ku dhaweyn baan u maleen maalinkii de way heshay waxaasna de ficil buu nagu sameeyay Soomaa uu noo dhaarinay anaga nama kala xigaan laakiin uu noo dhaarinay oo ficil buu nagu sameeyay marka waxaan leeyahay walaalayada anaga nacsuuma anu waxad kaan u socdaa horta la iscafiyo arba jimcahan baxaya xad baan u socdaa dad badan hooyooyin badan oo muddo arkin ba halka fadhiya oo qaali ah marka hal la iscafiyo markaan soo noqdo farxad iyo dabaal aynu iskugu nimaadno iyo deeq oo guuleystay Soomaaliya ha israacdo وينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروينك شرفت له آدي آد بعد ما حسنتهين سيدا وناكسن هذا وساق قشان مرتقاد كان ليدين في ذي هل محالي هذا ولا دميي داغ هذا الكبير دميي ولا قد بحلي لكن أنا وحان إذين سو جيدين هيا maadaama oo maanta wiilkan walaalka yaga oo dadkii uu la shaqeynayna ka warbixiyeen waxaan idinka codsanayaa inaad gacan siisiin si oo qofka markaan uu wax uu ku kaco markaan taageerno markaan garab galno markaan garab siino waxtarkiisa waan arki karnaa waa qofka bini'aadanka horta chance tilaisus wax la dhaho in la siiyo markaas ka bacdi baad qofka eedeyn kartaa mise aad u mahad celin kartaa marka wiilkan Soomaaliga amaanta waxaan idinka codsanayaa oo dadku la shaqeynayay xisbigu la shaqeynayay maanta wax kasta idinka sheega meeshan sida wanaagsan uu wax u bartay iyadoo wada shaqeyn wanaagsan inuu leeyahay marka marwooyinka sharafta leh oo badan waxaan idinka codsanayaa oo Soomaaliyeed maanta qof kastaba inuu chansiyo wiilka yaga Soomaaliyeed oo walaalka yaga ah oo maanta waqtigiisii oo dhan u soo qaatay inuu annakana haweenka gaar ahaaneed
uu noola hadlo waa mahadsantihiin waxaan kaloo rabnaa iyadana halkaan inaan ku casiino ama qayb ay ka ahayd hadalka inay iyadana wax ka sheegto ee Faadumo Cabdullaahi hadday meelahan ka dhawdahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaa weeye meeshaan isugu nimid meeshan tada wiilkan deeqa codka siino innagoo maalinka maanta waxqabadkiisa iyo muxuu ahay wixiisa dhanba maalinka maanta qabta laynoogu sharaxay insha allahu tacaala biidnillahi alkariim waxaan jeclahay inaan codka aan muxuu aan siino uu ku guulaysto ayaa ilaahay ka rajaynhayaa marka sidaa iyo dee nabadgelyo waxaan rabnaa inaan kaamirada ku soo dhaweyno dad badan waay laakiin qofka hadda ugu horeyn jaaniska siinayna waa muxubo ku soo dhawaawno waa inaan taageerno codkan ku taageerno inkastoo annaga aan deganayn magaaladana magaalo kale ka imaan bismillaahi raxmaani raxiim inkastoo aan deganayn haddana asxaab badan baad helsin ku leedahay waad keeni kartaa bismillaahi raxmaani raxiim waan mudayaan iyo marweyn waa idin salaamayaa salaan kadib macnaha wixii la oran lahaa waa la yiri anigu waxaan ku darsanayaa kaliya waxaan u baahnaa waqtiga xaadirka inagu haddaynu nahay maaha muutaya dad inoo ka qayb gala baarlamaanka oo waxbarasho heer sare ka gaaray oo si fiican wax u bartay sida deeq oo kale oo meelo badan ina ka maaragtay meelo badan aad u fara badan dawladda xaggeeda wax ka ogaan kara waxaana ka ogaan kara qof aad wax u bartay oo waddanka si fiican hubin qowlutatu iiminan waana deeq midda labaad oon anigu hadda meeshaan ka sheegaya waxay tahay anu hadal badan ma soo wado xisbiyadu way fara badan yihiin sida hadda ay noo sheegtaba nasro faarax dable xisbigii waddanka soo hogaaminaya dhowr 30 sano waddankaan joogna waa SDP kan inaga in anfacay haddaan maaha muutayana waa SDP waa social dimuqraadiga xisbiyadan kale waxaa moodaa inay annaga xoogaan geesanoo leeyihiin oo nagu soo taagan yihiin marka anigu codkayga weligay maba siinayo xisbi aan ahayn xisbiga SDP deeq baan siinaya taasoo inaga maaha muutaya ay si gaar inoo ku tahay maaragtay ay noo anfacayso caruurteenna xagga maaragtay cunsuriyadda dhallinyaradeenna xagga maaragtay kiyusaaminanka waxaan leeyahay xagga haweenka dumarkeenna oo maaragtay aan waxyaalo badan u baahannahay aanu deeqna u gudbin doona haddii rabbi idmo marka waxa weeyaan codkeenna SDP baynu siinaynaa deeq baynu siinaa haddii la haydmo intaynu waddankan ku noolnahaana innaga xisbigaas baa ina anfacaya xisbiyada kale waxay inoo qabanayaan male inagu dad masaakiin oo qaxootiyaa nahay dad waxaan nahay maaragtay cayr qaata hooyooyin masaakiin oo tabar daran baa nahay marka wax xisbigaas unbaa inaga danteena ka shaqaynaya xisbiyada kale kama shaqaynayaan markaa runta idiin sheego deeqna waa wiil wax soo bartay waddankaana irido badan furi kara waanad salaamantiin dhammaantiin halkaas hadal kaga baxaya guulayso baan leenahay gabadha walaasheen ah ee sida daacadda iyo qalbigeeda ka hadashay waxaan rabnaa inaan aan ku soo dhaweyno annagoo timeka aad noogu yaryahay gabadhii sanadkan isu soo sharaxday madaxtinimada Soomaaliya inay isu taagto amaal ku soo dhawaa baanu leenahay amaal waxaan jeclaan lahaa inay Soomaaliya gabadha ay noqoto madaxweyne insha Allah laakiin gabdho badan aan jecelnahay inay madaxweyne isu sharaxaan oo Soomaaliya ay maamulaan sababtoo raggeeni baa wax tari la maaragtay marka dumarka qaybtooda inay u gudubno waa jeclaan lahayn amaal baa hadlaysa السلام عليكم دمانتي ومهدسنتين waxa weeyaan waxaa la dhahay meel kasta oo la joogo waxaa la yiri sidee u taalaalo la yaala wadankan muddo 20 sano ka badan ayaa ku nooleen waa inaan wax la qabsanaa bulshada ku nool aan sidoo kale noqonaa iskoolaadka caruurteena ay helaan waxbarasho ku filan nolol ku filan anaga inaan soo kacno inay hooyooyinka wax bartaan si caruurta wax loo baro bulshad dhisan oo adagoo dhinac walba waa inaan helnaa waana inaan helnaa dad badan oo noo gala
oo noo hadla codkeena gudbiya meesha meel sarena gaarsiiya marka waxa weeyaan waa inaan qofkeena aan soo saarnaa maan inaan anaga qofkeena dib u celino marka waxaa idinka codsanayaa deeq waa in codkiina la siiyaa in la soo saaraa qofkaaga fiican halyeeyga ah horaa loo mariyaa ee gadaal lama geeyo marka waxaa idin oran lahaa aan soo saarana dad fiican oo annagana matala waxna tara si aan ula mid noqono bulshada meesha maraysa aan hiigsano horumarka iyo heerka ay gaareen waxa weeyaan waxaan dheeldheel laguma gaarin dad badana usoo shaqo beela dad badana iskoolaad loo soo dhigtay 10 sano ka badana wax la soo baranay marka waa inaan maanta helnaa mirihii qofka hadduu diyaar u yahay inuu dadkiisa wax u taro dalkiisa caawino waa in la garab istaagaa oo la hormariyaa isaga waxaan ka sugaynaa inuu noo galo haddii la yiraahdo xisbiga deegaanka uuna wax u qabto waa ujeedaa dad badan oo ku baahan dadkaagi caruur badan ayaa u baahan in la caawino dhallinyaradeeni bilaa iskuul baa jira jaamacadda heer ma gaarna baruskoolu ayay ku egyihiin ugu badnaan caruurtan dhibaatada xitaa lukiya ma gaarsiisana marka waa inaan u kacnaa waxyaabo badan aan arkaynaa jiro caruurtana wadankan ay ku dhasheen waxaa jira wax cultural shock la dhaho Soomaalina ma aha finishna ma aha meel dhexe ku dhumeen marka dadkaas ayaa u baahan in wax la qabto la taro oo hore loo qaado marka aan iswada kaalmeysana hal qof kaliya wax ma qaban karo hadaa anaga caawino unba caruurteena wanaag u heli karnaa marka ogaada waa la isku wada xiraya qof kasta dhinaciisa ka qabto hoosh okay salaamu calaykum waa soo gabagabaynaynaa laakiin hal qof ayaan weli siinaynaa hodan abay ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين horta anu ma ku fiicnay meelaha aan ka hadlo laakiin hadda ficil bay qaaday ficil baan maxay ula hadlayaa ficil baa kan keenay waxa weeyaan waxa fiican Soomaalinimadu inuu qofka bilaadanka madaamaan isir aan Soomaali ahayn qofka Soomarta is dhageysano waxa fiican qofku inuu Soomaalinimada ku dhaarto uu yahay Soomaali dhaba dhowxiisa iyo jirkiisa Soomaali maxay uu gartay dhiigiisa Soomaali yahay anu waxaad oran lahaa laba kalimadood waxa la yiri taageerada laba gacmo tamar ku yeeshaan hadday taagantahay mugtari taagantahay ma goysane dadka waxa la qaadaa marka jirisa bidixe wiilka walaalkeena aan siino codka aan maxay hayday gaarsiin halku doonayo si noo caawiyo insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantahay hodan Safiya qorax ayaan u malaynayaa hadda inay diyaar tahay oo anigu markii hore iga diiday inay qaybta soo istaagto ku soo dhawaad Safiya السلام عليكم دمانتين aad iyo aad baad u mahadsantihiin wiilkana sharafay gobdha dadka dharfasha dhamaan saaxiibada inkastoo hadalka ku fiicnayn haddana waxaan u rajeynayaa walaalkeen guul baan u rajeynayaa insha Allah ka waxaan sii wadanaynaa barnaamijkeeni deeq ayaan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkiina deeq wixii ka dambeeyo kale waa noo xirmi doonaa oo idin mahad celinayo sidaas iyo nabadgelyo runtii hadda waxaan joognaa malaya barnaamijkii gabagabadii iyo gunaanadkii intii hadal dhihi karay waa la hadlay waxaan kaliya oo hadda u baahanahay kaliya inaan isxasuusino doorashada waxay bilaabmaysaa arbacada bisha markay tahay 17 bilaabmaysaa ilaa waxay soconaysaa 23 marka kaas waxa la hayaa inaka aan tusaalaha kaas haddii aan ka faa'iideysan weyno waxa ku soo xoogo mid oo yoono dheer la galayo marka intaas waa xasuusin waaye inta labaad waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin sida wanaagsaneed ee danihiina uga soo tagteen inaad caawisaan ay ugu imaateen meesha aad iyo aad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay daawadayaal intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkii xogsidee aan ugu magac daray oo aad kala socoteen stuudiyaha magaalada Helsinki uu ku leeyahay Somali Journal waxaan idin la socodsiinay anigoo Maxamed Bashiir ah inta aanu mar labaad ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah guud ahaan waxaan idinku dhaafayaa sida iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنراها أنسى حتى